الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجري الأذكار بعد السلام من الصلاة ذكري تضباد أيها الشيخ ونوسو قادنا يا وحورنا يا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا حق له وعبد شيء إلا الله ولا وحده حاله كرديه لا شريك له وهو مصرمان له الملك ملك يسقى يلا عن شيء إلهي يبغرتني ما يسقى يوصلات وله الحمد ما هذنا يسقى يوصلات يحيي إلهي يسقى النورين عدوا نورين ويميت يسقى أيادري بيده الخير عندي سايا خيركو وكتشرا وهو على كل شيء وحق السنة قدير ومد أوض أوكرا 10 مرات تبنشر بورا بعد صلاة المغرب والصبح صلاة المغرب هي صلاة الصبح دبداد أيو أورانيا أرينا وحورين أيام إمام الترمذي oo isagu salaada subaxun sheegay in la akhrinayo waxa kale oo warinaya imaam Ahmed ayaa isaguna warinaya oo imaam Tirmidhi markaa Abi Dharr al-Ghifari ayuu ka warinaya imaam Ahmed baa isaguna warinaya oo salaada maghrib iyo salaada subax dabadeedba in la oranayo ayuu isaguna tilmaamayay وانا حديث مركا حسن لغيره لقلت المامي ويان درجتيسو وحن مركا حديث قاسي المامي والنبي يقول لك الترمذي وهاي ابي ذر يورين ايوه النبي صلى الله عليه وسلم وعلي من قال في دبر صلاة الفجر صلاة الصبح دبيت كيدا هو ثاني رجليه قبل ان يتكلم isagoo bimacnaa lugihiisu laaban yihiin oo sidii uu salaada kaga baxay ku sugan inta aanu hadlin laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wayumiitu wahuwa calaa kulli shayin qadiir 10 jeer ka yidhaahdaa kutiba lahu 10 xasanaatin 10 xasanaad loo qori wa muxyad canhu 10 sayi'aatin 10 dembi ayaa laga tirayaa ورفع له 10 درجات 8 درجة كربا لوغو قاديا وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه مالين دانا حرزي يدو فيسبوك كجرا وحل ياليه وحكا سو مكروه هاو دبسانيو وحرز من الشيطان شيطان كان إلالين بوخا سنانيا واللغا إلالينيا ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك إلى الشرك بالله ذنبنا ومهبونا oo suurtagal ma aha inuu yacni halaago oo baabi'iyo dembina uma haboono oo ma baabi'inayo ma halaagayo ilaa shirki mooyaan macnaha dembi waxyeelaynaya oo aan ahayn shirki ma jiro in allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duuna dhalika liman yashaa sidaasay markaa ka imaam Ahmedna uu tilmaamaya isagoo markaa isagu ku daraya 10 مرات بعد صلاة الصبح و10 مرات بعد صلاة المغرب فإن كل واحد منهن تكتب 10 حسنات وتحط 10 سيئات أدون مركا من ولد إسماعيل ومن حريو كرايو نقرية ذنبي سو قاري أنا مجرو شركي مو يعني وأنا مركا سلقوا إلى أن يا الشيطان كالصية وحق الصبر خادمي رواية مركا طبراني قلنا أيضنا سيا صوكري أيي تلماميسا ديوانا توحيد كأدرك يسوء ملك السوء الله سوق هذا دين دينوا توحيد كأي كليل كيسا ولقد بعثنا في كل آيات القرآن كاي يعني أمتك السر رسول بانو دي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وعلى يدي كلي اللين لعابده وحقستو إلهي سكدي لعابدنا لقد يراد مركا لا إله ألا حق لبو عابده إلا الله ألا مويانه وحده وحاله كلدي هي لا شريك له وهل مصغنان له الملك ملك يلا هانشو إلهي سقى أيوسنا ذي وله الحمد
mahadina isaga ayay alla u sugnaatay yuxyii wa yumiid ilaahay kala keliyoobay weeye noolaynta iyo diliddaba naf dhiman kartaa ma jiro asagoo aan bikayri sabab ilaahay ayaa idmay wuxuu doonaa khalqigiisa ilaahay waa noolaynaya wuxuu doonaa markaa ilaahay waa dilaya markuu ajashiisii uu gaadho biyadihi alkhayru ilaahay gacantiisa ayaa khayr oo dhammi uu ku jiraa khayr iyo sharba markaa waa ku jiraa laakiin inta badan khayrkun baa ilaahay loo nisbeeya sharka looma nisbeeyo washaru laysa ilayka waa taynu soo marayni wahuwa calaa kuli shayin wax kastana qadiirun waa mid awooda 10 maraatin bacda salaati lmaqribi wasubxi ayuu markaas odhanayaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dee dikrigani kooban fadliga iyo qiimaha uu leeyahay salaada subax iyo salaada maqrib dabadii diintuna waa itibaac ma odhanaysid shantaba salaadoodba waan odhanaya may shanta salaadoodba nebi maxamed kuma jiraynin waa salaada subax iyo salaada maqrib casar dabadiina odhan maysid duhur dabadiina odhan maysid cishaai dabadiina odhan maysid haddaad si mudlaqa xilliyo aan goonayn adigu aad iska akhrisanaysa laguma hayso laakiin meel ku gaaryeelideeda waxaad ku gaaryeelaysaa maqrib iyo subax oo nebi maxamed sala allah alay slam ku gaaryeelay haddaad tiraa duhur dabadii baan akhriyay waa lagugu haysa waxa lagu leeya yaa kuli ku gaaryeel duhur ilaa nebi maxamed kama ay sugnaanin wixii markaa haddii aad nebi maxamed ku raaci weydo adoo khayr ku doonaya aad khayr ku helaynin bal dembi kaa raacayaayo dee sunno khilaafideed bay noqonaysaa waana fadli ilaahay oo cidduu doono ilaahay uu siiyo bal u fiirso yacni waxaa lagu helayaa 5 qaniimo 10 xasanaa lagu qorayaa qaniimada labaad 10 dembi baa lagaa tiraya qaniimada saddexaad 10 darajaa lagu kor yeelaya riwaaya qaar waxay tilmaamayaan 10 qoorood qof xoreeya addoommada kala noqonaysa dembi yacni wax ku yaalaynayo shirki ahayni ma jiro shaydaanka iyo wax kastoo ku dhibaya ayaa laga ilaalinaya wax kastoo oo makruuha baa laga ilaalinaya waa 7 qaniimo oo digriga yaree fudud aad ku helaysa ilaahay hayna waafajiyo waafajinta ilaahay unbay ka tahay yacni waana tii dee adoo allahuma acini calaa dikrika wa shukriga wa xusni cibaadati ilaahay baa la yidhi ilaahu igu kaalmeyo igu waafaji baa la yidhaha dee inaad xisnu muslimkaa jeebadda ku haysato oo aad mar walba la soo baxdo xaalad kastood ku sugan tahay ayaa waxyaalaha kuu caawinayana markaa ka mid xaaladka markaad salaada ka baxda la soo bax oo markaad markaa aroortii la soo bax oo galabtii la soo bax oo xilli walba la soo baxo hayso oo markaa masaajidka soo galaysa la soo bax xilli walba la soo bax waxaa kaloo ka mid ah allahuma inii as'aluka ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa cilman naafican cilmi naafic ahoo waxtara wa risqan طayiban risqi wanaagsan ayaan ku weydiisanayaa wa camalan mutaqabala camal la aqbalayna ilaahayow waan ku weydiisanayaa bacda salaami min salaati اlfajri salaada subax marka aad ka salaamo naqsato ayaa taana aada odhanaysaa tan waxaa warinaya ibnu maaja ayaa xadiidkan warinaya oo uu ka sugnaaday waana xadiid saxiixa saxaabiga laga warinayana waa saxaabiyaddii umu salama waxay leedahay ana nabiya salى اllahu alay slam kaana yaquulu nebi maxamed waxaa mid yidhahdaa idaa salla subxa xiina yusalli markuu salaam naqsado ila way ogaanaysaayoo dikrigana nebigu kor ayuu ugu qaadi jiro waa laga maqli jiray ila nebigu salى اllahu alayhi wasalam dee mucallim buu ahaa ma xanshaashiqi jirina wuxuu akrinaya wuu maqashin jiray si looga qaado dee ragga iyo dumarkuna masaajidka way ku wada tukan jireen oo sataaradina uma dhexaynin ragguna xagga horey ku tukan jireen dumarkuna xagga dambey ku tukan jireen waa la ismaqlayay masjidkuna ma weyneyn marka wuxu uhi allahuma inii as'aluka cilman naafican wa risqan طayiban wa camalan mutaqabala ayuu odhanayay salaada subax dabadii wuxuu leeyahay allahuma ya allahu inii anigu as'aluka waxaan ku weydiisay cilman naafican cilmi naafica oo nafciya waxtar leh wa risqan طayiban ilaahu risqi wanaagsan oo naafic yacni xalaal ah wa camalan mutaqabalan iyo camal la aqbalay cilmiga naafici waa cilmi aniguna aan ku dhaqmo
dadkana aan sii gaadhsiiyo risiqa dayibkayna waa risiqa xalaasha ah een shubha iyo xaaraan iyo wax kale toona aanay ku jirin wa camalan mutaqabalan iyo camal la aqbalay ilaahayow iga aqbal leanno aqbaliddu yacni ilaahay bay ku xidhan tahay ilaahayow wixii markaa nuqsaanahee camalkayga ku jirtana ilaahayow adigu ii kabo ii buuxiyo ilaahayow iga aqbal adaa aqbale dee camalka la aqbalayaana waa inuu khaalis iyo camal ilaahay dartii loo qabtay waa inuu yahay camal sawaabo shareecadii nabiga sala allah alay slm waafaqsanna waa inuu yahay xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in dikrigani uu yahay mid sunno ah salaada subax marka laga baxo waad iska akhrisan kartaa waad ku ducaysan kartaa laakiin salaadaha dabadooda waxaad ku gaar yeelaysaa uun waxa weeye bacda salaati subax markaad ka baxdo oo adkaarda salaada subax gaar u leeday iyo qaar yacni waa tinu soo maray maqrib iyo subax ay leeyihiin iyo kuwo caam ah oo salaad waliba ay leedahay muxuu tilmaamay markaa xadiidku nabi maxamed weydiisan jiray allahuma inii as'aluka cilman naafican cilmi naafica waxtar cilmiga naafica ahi hortuu cilmigu waa kitaabka iyo sunnaha iyo wixii markaa dee aalo u ah ee u khidmaynaysa wixii laga soo dhambalay ee fiqi ah iyo markaa culumdiisii kale ee markaa kaabaysay iyo wixii markaa aalo iyo wasiilo u noqonayay weeye cilmiga markaa horta loo jeedaa cilmiga naafica ahina waa cilmiga camalfal uu la socdo cilmiga naafici waa kaa cilmigu waa laba cilmi baa cilmu fi lqalbi wa cilmu fi lisaan waa cilmi qalbiga iyo cilmi carabka cilmiga qalbiga waa kaa khashyada iyo cabsida iyo ku dhaqanka keena cilmiga carabkuna dee waa kaasun markaa ay iskhilaafsan yihin wuxuu sheegayey iyo wuxuu ku dhaqmayey ee berigii hore loodhan jiray wadaadadu waxay idhahdaan cilmigayga qaado laakiin camalkayga ha qaadan cilmiga un iga qaado laakiin camalkayga waa ugashugasha iska ilaali waxaana la doonaya cilmiga iyo camalku inay iswaafaqsanaadaan sidaa dadka u sheegayso inay markaa dhaqankaa tahay ilaahay hana waafajiyo haddii kale xuja ayuu ku noqonayaa addoonka sidaa daraaddeed baa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waacuudu bika min cilmin laa yanfac laws cilman naafican cilmi naafica buu ilahay weydiisay waacuudu bika min cilmin laa yanfac cilmi aan waxba taraynin cilmiga aan waxba taraynin waa ka aanad ku dhaqmaynin aad gudbinaynin oo xujo markaa kugu noqonaya ilaahay ha badbaadiyo dadka markaasu ha waafajiyo cilmiga iyo aqoonta sheegaya waxa kale oo ku sugan yani boorin risqi xalaala in la doono waayo risqiga xalaasha ducadaada lagu aqbalaya waa hadiya ambiyada iyo mursaliinta inaan xoolo iyo maal see lagu helaa un la odhanine waa risq xalaala see lagu helaa allahuma qnini bixalaalika can xaraamika waa inuu qofka ku ducaysaa ilaahw xalaashaada xaaraanta iga kaafi waa inuu yidhaahdaa maanta walaalayaal yani in badan baynu sheegnay zamanka iyo xilligaynu marayno xalaal iyo xaaraan baabkeedii waa la laabay waa la xidhay qufl weyn oo naynayna baa lagu dhuftay waa see xoolo loo helaa un marka xalaal iyo xaaraan loo kala eegi maayo yacni hantidii ummaddaa la boobaya oo la xalaashanaya oo kii shaqaynayay yacni shaqadii wixii loo diray sayahayd u qaban maayo kii taajirka ummaddiisii buu khiyaamaynaya qishigii iyo khiyaamadii iyo beliya baas buu ku wadaa kii shaqaynayay markaa shaqadiisii hagaajin maayo hantidii ummaddaa la boobaya oo la iska xalaashay rishwadii iyo laaluushkii iyo wax liyaaniyo wixii o dhan baa waxay inoo noqdeen magsab bay inoo noqdeen iyo wax lagu shaqaysanayo waana waxa in ducada la aqbalin keenaya camalka aqbalidiisu waxa weeye dee waa gaayada uu qof waliba rajaynayo waayo camalka in laga aqbalo weeye ka muhiimka inaad samaysa maaha dee waxaanu ku noqonayaa inuu khaalisan liwaji yahay inuu markaa sunnihii nabiga waafaqsan yahay xalaal curud inaad tahay maxaynu zuwadka ku soo maraynay wadaacatan miman xaraaman yaakulu mithlu lbinaa'i fowqa mawji yujcalu daacada ka soo fulaysa qof xaaraan cunayo quudanaya daacadaasi waxay ka dhigan tahay mithlu lbinaa'i fowqa mawji yujcalu dhis la yeelayo mawjad soconaysa korkeed bal mawjad soconaysa iyo webisaa u soconaya adigu sees ka dul samee ama guri ka dulis waxooyga baaldiga lagu rogee sibirka iyo xabadda dhagaxee la dhigay xabadda jaajuurka la dhigaaba way soconaysaa sidaasay xaaraantaa la cunayaa ay u gubaysaa camalkaagii wixii aad samaynaysay war ilaahay aan ka cabsanno oo aynu xaaraanta iska xalaasha aynu ku daalo
حلاشة وفي الغنية وفي الحلال غنية عن الحرام حلاشة أيين وفلان حرام ده ينقفلان وقت حرام ده لو كورني قريه هذا دير اللي جلني حرام ده وحالي ومضى قواريض يعني وحلا حلنا أيوه ويكو جوبيون مرير وعدنا ولا جلني قلت كيران ولا جردي كواد مركا هو كورني سيا طبعا كي يعرضها انتفاع يلا الماير وهو لي النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسي اللهم إنا نسأل علما نافعا علم يجيبه الرئيسي وهي علم نافعة أيها كان أيها إن رزق حلال رهاتسته ورزق حراش أيها كي حرام ده كوكا لقرته علم أيها كان أيها عمل كاغو إنه عمل ولا أكسن الله أقبلين النقطة مركا قفل بين مركا برطه الرماها مركا دي توحيدك يا إلهي مركا الله حلينا يا عبادتيسا إنه مركا أقول له هذا يا هديه مركا جناعسي كتشلو إنه أقول له هذا أيها لك مارمانا سي دي وبدبادو باب صلاة الاستخارة خير دونك صلاة هذه أي بابيها وقفق إلهي خير يا وناق كقدون إيه قال وحر جابر بن عبد الله صحابي وين يجريك جابر بن عبد الله كان رسول الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا مدنا برا الاستخارة استخارة إيا خير دونك إيا خير دورد والله أرهمت كودا خير كلا دورد ديسا أيو نبري تشري في الأمور كلها أرهمها أردن وحا لقودا أرهمها الدنيا ده هداي قور تهي هداي سعدال تهي هداي قناعسي تهي هداي نسمة تهي استخارة وحي قشا وحوية وأرهمها مباحات كاو وحي مصطحبه دين تو جعلي ستي أما واجباده واسبير استخارة كما باهنا وحي حاران أما كراهياهي استخارة كما باهنا وكتك لكن وحي مباحات أد سمينيسو أياد إلهي استخارة وديسان مرة قال يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة نوبرو السورة من القرآن سورة القرآن قاسدو نوبرو سورة القرآن قاسد لو قبها يباتنا وقبها انتبولا هايو نوبري يقول وحنونا إذا هم أحدكم متكين مركو كهميو بالأمر أرن مركو كهميو فليركع ركعتين لبر ركعدود هتكدو من غير الفريضة أو أنفر لين لبر ركعدود أو أنفر لين هتكدو فرلون وين أنا أحين حتى سيما من أول شيء رواتب تنصع تصلادها وين أهرت وين أنا فرلون نقول فليركع ركعتين ثم ليقول هي لا هذا إن ده كذب ومركا لما يصائد كسر مرزله بدي ركعت أيضا رئيسا اللهم يا لو إني أنا أستخيرك وحن خير كادوريا وأن كادوريا إرادي وافجيس أرنك كيس خير كله أستخيرك أطلب منك وحن كادوريا إرادي وافجيس أودي توسيسو إلى خير الأمر أرنك كيس خير كله بعلمك بسبب علمك أوغان هذا أدوه وحو البوغتهي أيان إلهي يو خيرك إرادي دورتودي وافجس أنكو ويدي سنية وأستقدرك إلهي يو كرسين أيان كادون يا إراد شيء خيرك آدي كرسي صودي يفضي دي صو بقدرتك أود هذا وحو البعد أود سبت إلهي كو ويدي سنية وأسألك إلهي وحن كو ويدي سنية من فضلك العظيم فضلك قوين فإنك هذه تقدر واد كرتا إلهي فضلك قوين أيانك ويدي سنيا لأنه وحى إلهينا سينيا وفضل يجود عد إلهي وحكوله مجرته إلهي فضلك أيانك ويدي سنيا العظيم قوين فإنك هذه تقدر واد كرتا وحو الباء إلهي واد ود ولا أقدر أن وحبا مكره وتعلم وحو البوادك هذه إلهي ولا أعلم أن وحبا موجي وأنت هذا علام الغيوب وحن مقن أردن كأوغان بدن باتي وحق قرصوري وحوري وحدن بي وح يعني سماء يدول يملك الكسر وكاقصوني ميشرو اللهم يا الله بريا إن كنت هداد تعلم ميدو هداد بمعنى أكتو علم يا يكون دريرتي أن هذا الأمر أرن كني ويسمي حاجته مركز مقعابية قور كاينا قبدا قور سدو
inaan meeshaa dego inaan safro inaan qofkaa la shuraakoobo inaan waxaa qabsado inaan meeshaa ibsado arrinkii aad doonaysa eed ku hamidayn waysamixajo khayrun lii hadduu ii khayr leeyahay fii diini aniga diintayda wa macaashii noloshayda iyo adduunyadayda wa caqibata amri arrinkayga cidhibtiisa iyo aakhiradiisa aw qaala ama wuxuu yidhi caajili arrinkayga kan degdeg ee hore wa ajili iyo kiisa dambe hadduu khayrii leeyahay faqdurhu lii ilaahayow ii qadar wayasirhu lii ilaahayow ii fudaydi uma baarik lii fiihi ilaahayow ii barakee wain kunta taclam ilaahayow haddaad tahay midog oo aada og tahay bay macna ka dhigatay cilmigaaga ay ku horeysay ana hada lamr arrinkaasi aan ilaahayow khayrkiisa ku weydiisanayo iyo wanaaggiisa inaad iwaafajisaa sharun lii hadduu shari leeyahy fii diini aniga diintayda wa macaashii noloshayda wa caqibata amri arrinkayga cidhibtiisa aw qaala wuxuu uhi caajili arrinkayga kiisan degdegee hore waajiliyo kiisa dambe fasrifhu canii ilaahayow arrinkaa weeci du isaga ilaahayow meel iiga weeci wasrifnii canhu ana ilaahayow weeci ilahuna kala weeci isagana galbeed weec ana bari oo kale i weeci midkaa imeelahu dhinac u kaxee hay soo dhoweyn iyo isagu yuu iga daba iman anna iyaan ka daba tegay haddaad isagana weeci anna weeci ilahu laba wadana kala mari bay ka dhiganta ila haddii isagoo qura la weeciyadaadu ka daba tagto ama haddii laga weeciyuu kaa daba yimaado dee waa halkeedii uun yani ilaahayow iga fogeeyo isna meel kale u kaxee anna meel kale i kaxee waqdur lii alkhayra xaysu kaana ilaahayow khayrkana ii qadar meel kasta oo uu joogaba ilaahayow khayr ii qadar oo khayrkay waafaji karsiin uma ardinii bihi ilaahayow waxaad iga yeeshaa mid raalli igu raalli geli khayrkaa mid ku raalli ah ilaahayow iga yeel ardinii waxaad iga yeeshaa mid raalli ka ah khayrkaa oo waxaad ii qadartay baa wixii hadduu idhaafo ama wixii haddaan helo dee waa wixii khayrka lahaayeed adigu ii doortay ii qadartay wey ilaahayow mid raalli ku noqdo si aad ii doortay ilaahayow iga yeela mid markaa wixii aad iga duday ee aan ii doorin markaa daba socda oo ka daba calacala ama markaa u cadhooda ilaahayow ha iga yeelin ee waxaad iga yeeshaa mid markaa raalli ka ah sidaas ayuu odhanayaa waxa kale uu sheekhu markaa inoo raaciyo wamaa nadima ma murugooda man istakhaara alkhaaliqa allaha khaaliqa qofka khayrka weydiista ee sidaa ilaahay khayrka weydiista ila waxaa khayrkiisa isii washaawara almakhluuqiina almu'miniin la tashada dadka makhluuqiinta ilaahay abuuree mu'miniinta isaga rumaysan ee isaga ku xidhan la tashada watahabata fii amrihi arrinkiisana u kaadin iyo kafiirs u sameeya waa saddex arrimood inaad allaha khaaliqa ah aada istikhaaro weydiiso intaad labada ragcadood u tukato ducada aada akhrido inaad dadka mu'miniinta ahee wanaagsan aada la tashato tira war arrintaa igala taliya watahabata fii amri arrinkiisana ka sugnaada yacni u kaadiya ta'ani iyo markaa u kaadin iyo sugid ku sameeya kaasi ma hoogo oo taladu ma seegto faqad qaala lahu ilaahay wuxuu yidhi washaawirhum kala shawr fi lamri arrinka kala shawr faidaa casamta yacni arrimaha muhiimka ah kala shawr oo kala tasho saxaabadaada faidaa casamta markaad arrin goosatana fatawakal cala allaahi ilaahay tala saaro marka hore la tasho dhinac walba ka eg ka fiirso marka aad laakiin arrin goosato fatawakal cala allah ilaahay tala saaro oo arrinkaasi dhinacnaba yaanu markaa kuu seegin halkan waxaynu ka qaadanaynaa oo xadiidkan markaas aynu ka fahmaynaa istikhaaradu iyo ilaahay oo markaa aada khayrka arrimaha weydiisataa inay tahay arrin wanaagsan inay tahay shay cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaado shay cibaado ah weeye waxa ku sugan ilaahayood aqoon oo dhan u qirayso ilaahayood awood oo dhan u qirayso ilaahayood cajsigaaga iyo tabardarradaada iyo aqoon la-aantaada iyo cidla fadhigaaga aada u qiraysood ilaahay wax walba xaggiisa aada u xawilaysood u qiraysood ilaahay weydiisanayso shayga khayrkii wanaagiisa inuu ku siiya waana ilaahay waa ku siinaya waxa kale oo ku sugan yacni dadka in lala tashado inay ayana muhiim tahay
قف قال له تشري سنة قف رأي له قف مؤمن رأي له وين يهي قف أريمها أقون أولى وين يهي قف مركاد وكادين لقوا يقان يدقدق وين أنوهي تقاربا وين وكعيهم ينوك على درع قف يعني رسينا أو دقن وين يهي قف ديني ولا صاحبه وإنه يهي وهكذا حديث قال إنه كقادر يا النبي صلى الله عليه وسلم مدي سوودي بريني وح دنيا آخرة ما أنفعيا سيدو مركا وقلت المامي وهكذا حديث قال إنه كقادر إنا وحقفق وقمهم سنين إنه يهي دين تيس برها ضوفير سدو عدم محا كتشري وحا كتشري اللهم إن كان هذا الأمر شر لي في ديني اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني وهي واحد مهم كهو دينته هداي دين دو كو هاغاغتو او دين دادو اي هاغتو واخ كا خمانيا ما جيرو هدي اي دين دو كا خماتنا او ابراهيم كاغا دعدنا واخ اللياليه واخ كو هاغاغياي ما جيرتو هدaba istikhارada noocana habeen baad sabay kartaa oo maalin baad sabay kartaa oo xilli kasta ayaad sabay kartaa marka istikhارada sabayso maxaa miyaa lagu la hadlayaa miyaad riyoonaysaa maxaa isay wax noqonayaan waxa weeye arrinkii waad ku soconaysaa waxa dhacaysa haddii aanu khayr ku lahayn ilaahay inuu ku nabcaysiiyo oo shaygiiba jacaylkiisa iyo wanaagii iyo doonidii aad doonaysa ilaahay kaa saaro ilaahay inuu markaa arrinkii kuuma fudaydinba waayo lababa isugu kaa dhici waayaanoo haddaad gabar doonaysa ilaahay ba iskiin waafajin waayo waxba ku heshin weydaan haddaad cid tudaakoobaysan haddaad wax la yaaliyo wuxuu ilaahay baa kaa baabkiisiba kaa soo oodaya ma maskaxdaadaa laga saaraya ama haddaad islaa wixii fuli baa kuuba dhaqaaqi waayaya dabeedna waxaad ogaanaysaa waxaas ilaahay waxaanu kuula ogolayn oo ilaahay aanu kuu doorin oo aan khayr kuugu jirin inuu yahay ayaad markaa ogaanaysaa ee cid kula hadlaysa iyo riyo iyo waxaad markaa arkaysaa ma jirto inaad ku celceliso 2 iyo 3 iyo 4 jeer aad ku celcelisana wax dhibaato ahi ee kuma sugna dee waa duco oo hadiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ducadana in lagu celceliyo in ayaa kamid ahayd derisku halka inoogu joogo wallahu a'lam.